madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka qayb galay munaasabad ballaaran oo si weyn loo soo agaasimay taasoo lagu xuseeyay maalinta uu qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u aqoonsaday maalinta dhalinyarada taasoo hore u ahayd maalintii UFO iyo waliba dhalinyaradii iyo ardaydii ku jirtay dugsiyada sare ee dalku ay taliskii Maxamed Siyaad Barre ay kala hortageen dhagaxtuur taasoo ay 1982 February madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa munaasabadaasi waxa uu kaga qayb galay oo lagu qabtay hoteelka Ambassador ee magaalada Hargeysa waxaana kala qayb galay xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo waliba dhalinyaradii maalintaasi dhagaxtuurkan kala hortagtay taliskii macaangaha ee Siyaad Barre waxaa kaloo munaasabadaasi kala qayb galay madaxweynaha maayirka caasimadda Hargeysa iyo waliba hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ee daneeya dhalinyarada Soomaaliland iyo sidoo kale marti sharaf kale oo lagu casuumay munaasabadaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo si rasmi ah u furay kana hadlay ayaa waxa uu si qoto dheer uga warramay maalintan iyo qiimaha ay leedahay iyo 6 sano ka hor dhalinyaradii waqtigaasi madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa kale oo uu ka hadlay qiimaha ay dhalinyaradu leeyihiin iyo sida uu xukuumadda u hogaamiyo ay uga qayb galisay xukuumadda uu soo dhisay isagoo madaxweynaha Soomaaliland ka hadlay arrintaasi waxa uu yiri haddii aan saareeyay oo nidaam loo hubo maanta farxadda iyo joogga kuwa joogay ma jiro adduunka halka iyo horumar iyo taariikh aan naftooda dadka ilaahay oo xorowday qaar baa lagu hamayaa inay iyagu naftooda oo dhibaatada u qaataan in dadkooda horumaro marka bulshada ilaahayna inta badan dheefooda badsado haddii arrimo noocaasa jirina adduunka horumartay inta ilaahay ka hamiyey ee dhalinyarada ee qaar ufanka gudaha soo galay ee qaar jihada soo galay ay guteen ee qaar ku awaalan yihiin ee qaar awood ah waxay ka mid yihiin dadka wanaagsan ee aan qiimo awoodin wanaagsan kuwaasaa mid wanaagsan ilaahay kuwaasoo farabadan ka helaya geeska kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlay qiimaha ay dhalinyaradu leeyihiin iyo sida loogu baahan in dalkooda ay xooga ay leeyihiin ay geliyaan ayaa waxa uu sheegay in muddadii uu talada waddanka hogaaminaya uu dhalinyarada u furay 4 account taasoo loogu talagalay in dhalinyarada dhaqaalaha lagu shubo lagu horumariyo isla markaana kor loogu qaado waxbarashadooda ciyaarahooda iyo waliba waxyaabaha kale ay u baahan yihiin waxaana madaxweynaha Soomaaliland halkaasi ka cadeeyay in lacagtii ugu horeysay uu 4taasi account oo dhalinyarada loo sameeyay uu ku shubay isagoo markale arrintaasi ka hadlay waxa uu yiri لكن الدنيا صلى الله عليه وسلم
سنوات دولي العالم هو الإسلام ولم يكن بطول بالفرصة ولا شيء الله كانت هذا الحكومة ورسالة المعارض حركة مقالة مستعصة مولي الفلوس لكن هذا غيرها ورشاد إلى الميامين سيرها خلال وضعها إخوة مكانك مولي سوريا ونفس الرحمة عليه مكانا الله هو مكان الله قال الله رسوله وقال الله رسوله وحيوان الله حسنات ولده معمول واحد تحسنات الأمرين والأشياء بس انت حسنات البشر أي من الله أولا سألتي وحديثي كان سترى وما تقول الغاية مثل ما أنت شعب الغاية هو الناس ومثل ما أنت شعب هذا ما يكون العالم والله الدين والدين تصور فريق شعب المعارض أكاد ودولة الواحد واحد عشر وحضارة الرشاء السنة تقول ستين وستين وزارة الثلاثة ومن الشعب وزارة إلى شعب الفرصة معنا دار أصول الشغل الأدوية لكنها حقوق بس إلى الحق وصل صدر العلاج اسمه الله معقول الله إن اسمه كفاية يقولون من مسألة كبيرة وقلت أنت كل شيء إذا أنت كل شيء غيصة إذا أنت محتاجة ترى أنت وجدت أي كما صار ويكون بين سحرين تكسر في الخير ولا أجدر يوم القرآن ولا أنت أمين تدخل على القرآن اسم الله تتأكد وقلنا يا الله يقول من الليل يعني أفضل سأل يا عبد الله فعل السنة أنتم أنت لا تشتغل بالباطل وبعد الله تعالى قلت لي ناس الدين قلت له واحد يجرى اسمه ده دولته وانت وانت ارجع مفترض وعسكرتي وجهلتي وهدي وانت بلد ماشي وانت فاهم تلك المشرق عليه اللي يوصل الاسم وانت تقول عارف مدينتها وانت هذا يوصل الان وهذا كله افضل سيجبت عليك على اسمها تعمل وصول بس خاطر هذه المحاولة الإنسان أن تفعلها إنك بستر تقدر أن تفعلها لما تمات وقرأت معطانا وأما بلاهي وأما هيوش وأما دولها عمل أهوزوا الدولة وقبل تخاف الأخصار الغير العياء تعرف الصعوص سألت وعمل وعمل وزيت فريق الجوان الأرضية كنت تنسبه بمن الله أنا المهم أستقل جلسة اليوم ولا إلى غير ما على الأرض اليوم بلاد وحرشة الحوار والبلاش يا بقول يوجد كل يمكن أن الله تعالى وعدت البلاد وسلم بحيثها ومن يصدر الرب يقال له انت هذا madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi oo sii watay hadalkiisa ayaa waxa uu ka hadlay sida ay muhiimka iyo lagama maarmaanka u tahay in dhalinyarada somalilan ay isdhexgal sameeyaan ninka soomaaliya hortayda ka doonaya inuu aqoonyaha caalamka oo la tartamo oo adduunka oo yaqaano oo baahin ka doonaya hadduu haysan oo asxaabta ku salaado oo xaafadda saahado daafa soomaaliya marka shaqada waxay baray ku isdhexgalaan اشتغل قطعا إن قطعا إن بتحاول قطعا إن واحد ذاك اللي يقول هي أي مرتين سويت سارة ما هذا شغال ولا تبع يقول بدي أصلا يقول قام شح معه وكل ماشي سبحان الله بكرة الله وحقش كل يوم إن كل مرة يمشي الشق إلى خبر القرآن مليون يقول الناس خبر طريق الله سبحانه كيلو من الرجل بعد سنة عادية وأنا ولا أقول لما حديث العلم والحتى سوى اليوم هذا الرجل كذا حديث كل سنة إن بش ديسمبر ولا كل نوفمبر أيام التحرش بدء الأسرة التي تدفع على أول هذا الشيء غير الله
يقول واحد لحد بول اليوم يمكن مرجع هذا كلام صحيح was المساء لما نحن أنا والله واحد من الفنانين يسبح يستخدم بوشي وهذا وهذا يسوي في الموضوع أو كل عشان عارف ولا يسبح يستخدم بوشي سبح ولا ولا وعلى هذا الشيء أتمنى زيادة زيادة واحد صاحب شغل وجزاه munaasabadaas ayaa waxaa kaloo ka hadlay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland waxaana uu ka warramay maalintan iyo qiimaha ay leedahay. Anigu dardaaranka dhalinyarada waxaa leeyahay dhalinyarada waxay haysataan madaxweyne idin heelan oo had iyo jeer looga horreeyo dhalinyarada ugu horreeyo annaga waqtigeedu saacaduna diyaar baan nahay sabta dhexaadda oo joognaa waan lidii sheegayna waqtiga ka faa'iidaysataan ilaa ka hadhaan qabyaaladda ilaa ka hadhaan daraagiska ilaa ka hadhaan immigrationka ilaa annaga nala tarsataan waxba noo soo sheegtaan gudoomiyaha dalada dhalinyarada Soomaaliland ee Sooya Cabdicasiis Siciid Saalax oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dhalinyarada looga baahan yahay in tacabkooda iyo xoogooda ay geliyaan qaranka Soomaaliland isla markaana ay ka fogaadaan dhibaatooyinka ay leedahay taariikhdu oo ay dalkooda u soo jeedaan kana shaqeeyaan waxay ku qaybsata Soomaaliland ay shaqeeyay taariikh fadlan isla markaana u baahan in kor loo qaado la ciseeyo la sharfo cadaalad kor loo qaado maalintan taariikhda oo badan ka faa'iideysanaysa munaasabadaas ayaa waxaa ka hadlay Dr. Tani oo hogaaminayay 1982 dhalinyaradii dhagaxtuurka samaysay halkan ka salaamaya nin aan in badan saaxiib ahayn isku lahayn halkan soo wada galay oo maanta aan ku kulanay halkan isagoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dalkiisa waxaan u rajaynayaa in uu noqdo madaxweyne generationkeenu ku faano madaxweyne intii halganka soo gashay ay ku faanto madaxweyne secondary amuud intii gashay ku faanto madaxweyne reer ay ku faanaan horta significance-ka maalintaasi ay leedahay waxa weeye maalintii dhagaxa la tuuray aan dib looga noqon ee halgan continuously uu socday ilaa waddanka lagu xoreeyay maalintaas sharafkeeda dhalinyaradii dhagaxa tuurtay baa leh waxaa leh dadkiina saboor garaynayay feesalayay dadku xaajitaay qofkii ugu horreeya jarka lagu yimi waxay leedahay historical perspective halganku maalintaa ma bilaabnay halganku ilaa 60kii ayay dhalinyaro waday ugu horey waxaan hambalyo weyn u dirayaa dhammaan dhalinyarada reer Soomaaliland meel kastoo ay joogaan maanta waa maalintoodii mahantii dhalinyarada bulshada waa 70% waxaanay gudan yihiin in la dhiirigeliyo oo runtii la horumariyo waxaan leeyahay waa in la helo siyaasadihii lagu dhiirigelin lahaa ee u saamixi lahaa dhalinyaradu inay horumar gaadho dhalinyarada waxaan leeyahay waa inay ku dhiiradaan himilo weyn iyo hanfur mar labaadka waxaan run ahaantii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo run ahaantii halkan kaga dhawaaqay waxyaabo runtii aad loo farxad geliyay soo saama run ahaantii madaxweynuhu wuxuu balan qaaday oo inoo sheegay in 4 sanduuq ama 4 account la furay qaarkood lacag lagu shubay taasi waxaan leeyahay waa guul soo hoytay Soomaaliland madaxweynaha iyo xukuumaddiisana waxaan leenahay waa mahadsantihiin jazakallahu khayran hay'adda hafayoko waxay muddo 7 sano la soo shaqeynaysay dawladihii kala duwanaa ee Soomaaliland soo maray iyadoo markaa awoodda saaraysay horumarinta beeraha
kalluunka biyaha xoolaha iyo shaqo abuurka si gaar ahaana hay-adda hafayadu waxay awoodda saartay shaqo abuurka iyadoo markaa furtay xarumaha ugu waaweyn ee dalka lagu barto farsamada gacanta. axmed saki daayir xasan warbaahinta qaranka somalilan magaalada hargeysa.